ku soo dhawow nashqadda cusub ee application-ka Wafi kaasoo horumarin iyo sidoo kale casriyeyn lagu sameeyay kana duwan nashqadii hore. Update-kan cusub si aad u isticmaasho soo kac application-ka Wafi kadibna gal qaybta ay ku qoran tahay money kadibna gali nambar sireedkaaga. Waxa ku soo baxaya ama aad arki doontaa shaashada ama wajiga hore ee Wafi-ga cusub oo ay ku soo muuqan doonto 6 qaybood oo ay ka kooban tahay qaybta money. Qaybta koowaad waa send ama lacag diris. Taabo ama ku dhufo send kadibna gal qaybta wallet-ka marka aad doonayso inaad lacag ka dirto wallet-kaaga sida Zaad, Sahal ama EVC Plus-kaaga. Sidoo kale waxaa menu-ga send ka isticmaali kartaa marka aad akoon-ka lacag u dirayso, marka aad xawaalada isticmaalayso iyo waliba Bank Express oo ah inaad si toos ah akoonkaaga lacag uga diri karto. Pay waxaad isticmaali kartaa qaybtan marka aad dukaamaysanayso ama marjantiga lacag u dirayso iyo sidoo kale marka aad doonayso inaad bixiso biilasha sida korontada, biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo wixii la mid ah. Qaybta load waxay ka caawinaysaa marka aad bangigaaga rabto inaad lacag ka soo saarto isla markaana keento wallet-kaaga sida Zaad, Sahal ama EVC Plus-kaaga. Isticmaal qaybta withdraw marka aad rabto in lacagtaada wallet-ka kugu jirta aad bangigaaga dhigato ama aad rabto inaad kaash ahaan la soo baxdo. Qaybtan shanaad waxay ku sahlaysaa marka aad doonayso inaad furato virtual visa. Banking waxay ka caawinaysaa inaad kala socon karto haragaaga bangiga ama marka aad rabto inaad akoonkaaga ku xirato wallet-kaaga. Halkan ay ku qoran tahay reports waxay ka caawinaysaa inaad la socoto warbixintaada maaliyadeed. Haddaba taabo halka ay ku qoran tahay more reports kadibna waxaad ka doorataa waqtiga reportka, nooca reportka aad rabto sida xawaalad, bangi ama wallet. Haddaba si aad u hesho caawimaad, taabo halka ay ku qoran tahay setting kadibna dooro halka ay ku qoran tahay help. Haddaba si aad u isticmaasho Wafi nashqadiisa cusub ee ugu dambeysay kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka. Mahadsanid.